kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalka caasimada waa 8 bisha July 2019 wararka aan idin hayno waxa kamid ah odayaasha cadaado oo diiday inay la kulmaan khayre weerar toos ah iyo qarax ka dhacay Muqdisho Somaliland oo xukun adag ku riday wariye Coldoon al-shabaab oo ka hadlay weerarkii ka dhacay Saybiano igaad oo war ka soo saartay heshiiskii ahlu sunna iyo dawladda federaalka wafdi uu hogaaminayo khayre oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo askari baxsad ahaa oo laga soo qabtay guriga siyaasi caan ah xildhibaan fiqi oo iftiimiyay sababta ka dambaysa dagaalka Yariisow iyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon wararka caasimada online haddii aad nagu cusub tahay fadlan saar boggeena subscribe si aad u hesho warar iyo warbixino xasaasi ah wararka naga soo gaaray magaalada Cadaado ayaa sheegay in odayaasha magaaladaasi ay diideen inay la kulmaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha oo xildhibaano ka soo jeeda Cadaado u diray in ay isu keenaan odayaasha ayaa waxay ugu dambeyn ay diideen in ay la kulmaan odayaasha Cadaado ayaa xildhibaanadii u igmaday u sheegay inaysan marnaba la kulmi doonin ra'iisul wasaare Khayre iyagoo ku eedeeyay inuu ka baxay ballamada hore u galeen xildhibaanada ka soo jeeda Cadaado isku dayeen odayaasha ku qanciyaan la kulanka ra'iisul wasaaraha ayaa la soo sheegay inuu fashilmay kadib markii odayaashu ay ku adkaysteen inaysan marnaba hor fadhiisan doonin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya odayaasha ayaa xildhibaanada deegaankaasi ka soo jeeda u sheegay inaysan iyaga lahayn go'aanka Cadaado sida daraadeedna go'aan ay ku gaareen inaysan wada hadal la fudhin ra'iisul wasaaraha ay ku eedeeyeen inuu ballan hore uga baxay ra'iisul wasaaraha yofdigiisa oo wajigabax kala kulmay Cadaado ayaa markii dambe u ambaxay dhanka magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug halkaasi waxaa ra'iisul wasaaraha si diiran ugu soo dhaweeyay boqolaal dadweyne ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka magaaladaasi wararka ayaa sheegay in kulamo looga hadlayo nabadda gobolka Mudug iyo dhibaatooyinka ka jira Gaalkacyo ka bilaabi doono halkaasi in ku dhow 2 toddobaad ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ku sugnaa gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya isagoo booqasho ku tagay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi markaana Muqdisho kooxaha hubeysan oo watay gaari yar ayaa rasaas ku furay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo ku sugnaa kontaroolka gawaarida lagu baaro xaafadda Saybiano degmada Hodan ee gobolkan Banaadir dableydan oo ka tirsan al-shabaab ayaa weerar toos ah oo qorsheysnaa waxay ku qaadeen kontaroolka Saybiano ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya rasaasta oo socotay dhowr daqiiqo isla markaana la isdhaafsaday rasaas aad u culus ayaa waxaa la sheegay inay ka dhalatay khasaare xooggan sida aan wararka ku helnay waxaa halkaasi ku dhintay ku dhawaad 10 qof oo isugu jira ciidamada dawladda ee halkaasi ku sugnaa iyo dad shacab ah oo halkaasi joogay waxaa la sheegay in la dilay 2 ka tirsanaa ciidamadii weerarka soo qaaday xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maalmihii dambe waxay ahayd mid degan iyadoona howlgallo ay ka wadeen ciidamada ammaanka Soomaaliya dhinaca kale al-shabaab ayaa ka hadlay weerarkaas waxaana ay sheegeen inay fuliyeen dagaalyahano ka tirsan kuwooda oo ay beegsadeen kontarool ciidamada dawladda ay ku leeyihiin Saybiano sargaal ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa idaacadda Andalus u sheegay in ciidankooda ay weerareen kontaroolkan isla markaana ay laayeen ciidankii halkaasi ku sugnaa sidoo kale waxa uu sheegay in dagaalyahanadooda iska caabiyeen ciidamo gurmad ah oo soo gaaray goobta kuwaas oo uu sheegay inay khasaare culus gaarsiiyeen dhanka kale mas'uuliyiinta hay'adaha amniga ayaa waxay sheegeen in ciidamada dawladdu ay toogteen 2 ka mid ah raggii rasaasta ku furay bartaasi kontarool oo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin xaafadda Saybiano ee degmada Hodan sidoo kale wararka ayaa sheegaya in meesha sidoo kale ku dhinteen dad shacab ah oo gaaraya ilaa 4 qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan dhinaca kale warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax isla maanta ka dhacay magaalada caasimada ah ee Muqdisho qaraxan oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa waxa uu ku qarxay meel ku dhow isgooska Digfeer ee magaalada Muqdisho gaarigan ayaa waxa ku hareereysnaa ciidamada dawladda waxaana uu ahaa mid saarif madow ah ku dhawaad 1 saac ayaa gaariga waxa ku hareereysnaa ciidamada booliska Soomaaliyeed ciidamada dawladda ayaa markii hore gaariga xabado kor ugu riday balse dadkii saarnaa waa ay ka biyo diideen inay soo degaan ugu dambeyn ciidamada ammaanka ayaa rasaas xooggan ku furay gaariga taas oo keentay inay isqarxiyaan wadihii gaariga iyo qof kale oo la socday sidoo kale qaraxan ayaa burbur xooggan gaarsiiyay dhismaha goobaha ka agdhawaa meesha uu ka dhacay kuwaas oo u badnaa xarumo ganacsi haddii aan eegno Hargeysa maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa saaka xukun adag ku riday wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo muddo
maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa saaka xukunada ku riday wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo muddooyinkii dambe ku xirnaa gudaha magaalada Hargeysa ee xarunta maamulkaasi. wariye Coldoon ayaa eedeymaha loo haysto waxaa ka mid ahaa inuu aflagaadiyay madaxweynaha maamulka Somaliland sidoo kalena wax ka sheegay dugsiga Abaarso oo ku yaala magaaladaasi Hargeysa. maxkamadda Maroodi Jeex ayaa wariyahan ku xukuntay 3 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah kadib markii ay sheegteen lagu helay dambiyadaasi. Coldoon ayaa marar badan la soo hor istaajiyay maxkamadda balse ugu dambeyn saaka ayaa lagu riday xukunkaasi. wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ayaa aad wax uga qora arrimaha Somaliland gaar ahaan dhaliilaha maamulkaasi oo uu ku baahiyo baraha bulshada internetka. Somaliland ayaa dhowr jeer ku xirtay gudaha magaalada Hargeysa kuna riday xukuno kala duwan. inta badan Somaliland ayaa xabsiga dhigtay dadka wax ka sheega waxaana had iyo jeer lagu eedeeyaa inay caburi xoogan ku hayso dadka ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi. dhinaca kalena shirka amniga caasimadda oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay howlgaladii ugu dambeeyay ciidamada ammaanku ay ka sameeyeen degmooyinka gobolka Banaadir. shirka oo ahaa mid xasaasi ah waxaa inta badan ka qayb galay saraakiisha amniga iyadoo uu shir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso. saraakiisha laamaha amniga ayaa sheegay gacanta lagu soo dhigay askari baxsad ahaa oo muddo ay ku raajoogeen ciidamada booliska Soomaaliya. askarigaasi ayaa la sheegay in laga soo qabtay guriga siyaasi caan ah oo ku dhuumaalaysanayay inkastoo aysan shaacin magaca siyaasigaasi. sidoo kale ciidamada booliska ayaa gacanta ku soo dhigay kooxo hubeysan oo dhibaato ka geysanayay degmooyinka Hodan, Wadajir iyo Dharkiinle iyo gobolka Banaadir. gudoomiye Yariiso ayaa sidoo kale warbixino la xiriira dhinaca amniga ka dhageystay qaar ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa howlgallada ka socda caasimadda. shirkan oo toddobaadkiiba mar la qabto ayaa diiradda lagu saaraa amniga iyo dhibaatooyinka kale ee ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho. xogayaha guud ee goboleedka IGAD Maxbuub Macalin ayaa markii ugu horeysay ka hadlay heshiiskii ay dhawaan wada gaareen kooxda Ahlusunna wal Jamaaca iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maxbuub ayaa sheegay in IGAD ay bogaadinayso heshiiskaas lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. sidoo kale waxa lagu farxo ku tilmaamay in Ahlusunna ay ogolaato in ciidamadeeda ay ku darto kuwa xooga dalka Soomaaliyeed. xogayaha ayaa intaas ku daray in talaabadan ay dowladda dhexe u suurtagelinayso in ay la wareegto guud ahaan amniga dalka. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayri ayaa dhawaan si rasmi ah Ahlusunna ugala wareegay ciidamadii hogaaminaysa si loogu biiriyo kuwa dowladda. xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan taliyaasha ciidamada qalabka sida ayaana diiwaangelin ku bilaabay ciidamadaasi. arrintan ayaa qayb ka ahayd guul ay dowladda federaalku ka gaartay maamulka Galmudug oo dhawaan galaya doorasho madaxweyne. ugu dambeyntiina xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay xiisadda ka dhex taagan gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. xildhibaan Fiqi ayaa marka hore su'aal geliyay ujeedada dhabta ah ee ka dambeysa dagaalka afka ah ee ka dhaxeeya gobolka Banaadir iyo wasaaradda caafimaadka, kaas oo uu ku sheegay in dagaalku uu ka taagan yahay cidda qaadanaysa lacagta ka soo xaroonaysa buugga caafimaadka. Fiqi ayaa sidoo kale waxa uu su'aal geliyay sababtay wasaaradda maaliyaddu u gabtay kaalinteedii maadaama iyada loo igmaday qabashada lacagaha soo gala dowladda. Axmed Macalin Fiqi ayaa arrintaas kaga hadlay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga. gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasaaradda caafimaadku ma waxay isku hayaan buugga caafimaadka mise cidda qaadanaysa lacagta ka soo xaroonaysa buugga caafimaadka ee xujooda loo jarayo, ayuu yidhi Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal wararkii aad kala socoteen caasimadda online xilligan waa naga intaa. waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal daawashada warkeena.